ururka tisqaad ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiga degmada Beledhig kuwaas oo ka mid ah macallimiinta ugu firfircoon ee wax ka dhiga dugsiga degmada Beledhig munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano abwaano iyo salaadiin hadaladoodina waxaa ka mid ah macallimiintu meel kasta ay joogaanba way mudan yihiin in loo mahad celiyo oo loo mahadnaqo oo la yiraahdo waad mahadsantahay kulli dadka Soomaalida way ku yartahay iyo bini aadankaba qof wax ku soo baray oo wax ku soo dhigay oo ku soo hortaagnaa in la yiraahdo waad mahadsantahay shahaadada intan u galiftay intaasan bay ahayd intiina maanta qayb ahaan waanu ka gaadhay guul walina waxaa noo soo socdaa macallimiin kale oo badan oo dadaal badan degmada soo geliyay deegaan ma kala laha qaybna ma kala laha dhinac bay wada jeedaan markasta way istaageerayaan waayo waa group ka shaqeynaya mar walba dadkayna wax baraan horumariyaan ururkan da'yarta ah ee dhalinyarada ah ee ilaa maalintu korsa bilaabada sida ay ka sheekeynayeen macallimiintu soo waday iyagu gaaray inay xusaan maanta macallimiintooda macallinka shayga la yiraahdo halkan iyo meel kale midna laguma soo koobi karo qiimaha uu leeyahay bini aadamka mahad celinayo dhiirigelin in badan baan intaan xagga joogay inta halkan joogay baa isriin marhulu talo saad ugu sameeyay xaflad weyn ilaa waa maxamuud axmed cali Beledhig hadda waa maxamuud axmed cali Beledhig laakiin alxamdulillah ururka tisqaad ayaa arintii aan inta badan niyadeeda ku hayay maanta iga la wareegay xilkii marka waxa ku qoran buugeeyo nuxur liyaado yaani waxa lagu masaalaa cilmiga maalinta oo kale ilaa waxa waxa lagu masaalayaa de maalinta waxba lagu arkaa oo aragti bay leedahay cilmiguna aragti macna weyn uu bixiyaa sidaas ajligeed waxa lagu masaalaa cilmiga maalinta oo kale hayeeshii haddaan macallin jirin lama magawsheene oo wax iska xidhan buu noqon lahaa lama heleen murtibay qalbiga noo gasheen magan ilaahay oo kala macallimiinta macnaha murtibay qalbiga noo gasheen magan ilaahay maamuusna way leeyihiin maalmo kaafiye in loo mahadnaqo macal Cabdullaahi baa sheegay maxamuud axmed caliyadii degmada Beledhig in loo mahadnaqo oo la maamuuso waxaan malaynayaa intan ay maanta u qabanay waxaan u dhaweyn bay u qalmaan in loo sameeyo anigu waxaan soo jeedin lahaa goobaha waxbarashada degmada in magacyadooda loo bixiyo ayaan soo jeedin lahaa qaar ka mid ah waayo waxaan ogahay anigu sida ardayda badan ay sheegaan waxaan soo fadhiistay markii ay waxbarashada bilaabeen maxamuud cumar xirsi iyo axmed ibraahim ducaale xilligii waxbarashadu ay ahayd bilowga ardaydii ugu horeysay fadhiistay daasadaha baan ahaa iminkana macallin baan ahay wax ka dhiga gobolka waxa kale oo si mahad celinayaa ururkan dhalinyarada ah ee iminka dardarta cusub la soo baxay waanu mahad celinayaa waa idin la shaqeynaynaa laakiin waxaanu idin kula shaqeynaynaa tisaad u shaqeysaan markaanu aragno ee ku qanacno waanu si wacan idin la shaqeynaynaa idinku waxaad qabataan waanu idin la qabanaynaa runtii waxay ahayd arrin laga gaabiyey oo intaas oo waxa weeye dhalinyaro oo ka soo baxday oo wax soo bareen oo maanta dhaqaatiira oo siyaasiyiina oo professorra oo waxa weeye macallimiina ay maanta garan waayeen ay garatay ururka la yiraahdo tisqaad taana waxaan leeyahay waxaan naga furateen hawl balaaran oo runtii anagu aanu ka gaabinay taasina waa taa tisqaad maanta waynu wada ogsoonnahay baan u maleynayaa hadday horumarinta degmada tahay hadday waxa weeye xagga nadaafadda iyo sanitationka degmada tahay hadday dhanka waxbarashada tahay hadday tahay xagga waxa weeye siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba ururka tisqaad uu ka shaqeeya shalay waxaan soo raacay gaadhi dhaynaa dushii gaadhiwan waaye gaadhiguna oga yarxumaa adani iyaga ay yeedho ilaa berri kale dhaxbsad waa qabloob soomaysaa waxaan ku khasbay in halkaas soo fulo waayo waxa weeye haddii kale dee moralkood hoos u dhaclaadaan maanta ka maqnaado aad baan idinku mahad celinayaa dee anigu maanta aabbaan hay dee aad iyo aad baa masan ducaan hay oo idin soo ducayn haddii la yidhaaho wixii wax qadar isla kaashinaa kelmadda keliya aan kusoo gebagabeynaya waxa weeye wixii kale waynu garanay war aqoon-yahanka Beledhig
hay'adaha khayriga ah wasaaradda waxbarashadu waa inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka oo la dejiyaa balaan lagu hogo wasaaradda waxbarashada degmada Beledhig markaasaynu guul gaadhaynaa inta tafaraaq ku jiro waxba gaadhimayno runtii maanta wixii ka horeeyay anigoo ka mid ah uqaasha degmada marka aanu tagno golayaasha lagu faalaynayo waxbarashada hoos baa linoo dhigi jiray oo waxa la oran jiray degmada Beledhig halka maanta ay marayso aad iyo aad baa hoos looga dhigi jiray laakiin waxa muuqata malaamiyuhu baynaan geline marka aan arkay faalada halkan laga bixinayay iyo hadalka ay macallimiintu iska daba yiraahdeen inaynu meel sare aynu marayno oo nahay xalfadani waxaan malaynayaa watii rasmiga hay'addan xogaalka u ahaa waayo waxa lagu wadaa xalfadan loo qabtay macallimiintii deegaankayga ahaa ama degmadayda ahaa ee u soo dhabar adeygay caruurtii yaryarayd ama imika heer jaamacadeed ku jira ama qalin jabiyey ama macallimiina ama iyagu wax sii baray imika raggii u soo dhabar adeygay wax u soo baray baa xalfadda lagu maamuusay 1000 jeer waxaan ku maamuusayaa tan iyo mid kaleba 1000 jeer baan ku maamuusayaa waayo xogaal baanu ahaa Axmed Gorsiye Maxamuud Cumarba ururka tisqaad ayaa ka mid ah ururada ugu cadcad ee ka shaqeeya gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waa Cabdulaahi Maxamuud Baafo wararka telefishinka Royal TV magaalada Burco.